Jungle. فيديو waxaan uga hadlaynaa shantaha kale ee ugu halista badan adduunka ugu dambeeya ayaa ka ugu halista badan manaysan kartid waxa uu sameeyay intaan u gudgalin mowduuceena bilis channelka subscribe nasar si aan u gaanoonka oo subscribe hadii aan la joogtayna like nasar aan u gudgalno mowduuceena meela socota kaalinta shanaad waxa soo galay Julius Kifimaki waxa uu ku dhashay wadanka Finland isagoo 10 jir ah waxa uu jabsaday labada shirkad ee ugu waaweyn adduunka dhanka gameska laguna magacaabo PlayStation and Xbox isagoo dhici jiray maalmaha Christmaska ee gaalada dabaaldegan sidoo kale waxa uu jabsaday 33,000 oo bukaan xogtooda isagoo lacag madax furasho ah ka qaadi jiray waxa kale oo jabsaday akoonka ay ku leedahay Tesla Twitter-ka kaalinta afraad waxa soo galay Milton Behavior waxa uu ku soo jeedaa wadanka UK ama England sida ay taqaan waxa uu nafta ka jira wadanka Mareykanka waxa uu jabsaday wakaalada NASA iyo NATO sidoo kale waxa uu weerar ku qaaday wadanka Korea isagoo dhacay hanti badan kaalinta saddexaad waxa soo galay Alberto Castales waxa uu ku dhashay wadanka Cuba waxa uu dhalasho ka haystaa wadanka USA ninkan ayaa waxa uu dhacay 100 milyan oo kar kuwaas oo laga baxay lacagta ATM-yada isagoo ku isla markaana kombiyuutarka ugu diri jiray virus qofku uu ugaarsanayo kadibna uu ogaanay macluumaadka qofka oo dhameystiran kaalinta labaad waxa soo galay Hamsi bin Abdullah waxa uu ku dhashay wadanka Algeria waxa uu ku hadli jiray 5 luqadood waxa uu jabsaday 217 bangi isagoo kala baxay 40 milyan kaasoo u kala xawilay qaaradda Afrika iyo Falastiin sidoo kale waxa uu awood u yeeshay in uu maamulo 60 milyan oo kombiyuutar oo la dunida daafeeda kaalinta koowaad waxa soo galay Gary McNum waxa uu ku dhashay wadanka Mareykanka waxa uu jabsaday wakaalada NASA iyo 200 oo bangi oo ku yaala dunida daafeeda hantida uu dhacay oo dhan markii la isku daro waxay gaaraysaa 200 oo bilyan oo dollarka Mareykanka ah